waxaan daawaday madaxweyne xasan sheekh oo tegay waddanka Azerbaijan. runtii waddanka Azerbaijan waa waddan Turkiga ay saaxiibo yihiin, Turkiga ay yihiin walaalo, waayo waddanka waxaa ku nool dad fara badan oo Turki ah oo dee boqolaal sano ka hor tegay. Sida xitaa la sheego madaxweynaha waddanka Ilham Cali ayaa ka mid ah dadka Turkida ah. laakiin su-aashu waxay tahay, waxaan sidoo kale daawaday madaxweynaha Azerbaijan oo hadlaya markii madaxweyne xasan sheekh uu la fadhiyay. wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu Soomaaliya caawiyo, meelo fara badan, xagga dhaqaalaha, xagga ciidanka, wax badan. su-aashu waxay tahay madaxweyne xasan sheekh iyo Soomaaliya diyaar ma u tahay inay ka faa'iideysto Azerbaijan, mase sida Turkiga oo kale ayaa waxaa lala aadi doonaa musuqmaasuq iyo qurun. waxaan leeyahay Azerbaijan waa waddan cusub, ha la soo dhaweeyo, safaaradda xagga ha la geeyo, safaaradda xamar ha ka furtaan, scholarship ha la furo, fiisooyinka ha la furo. laakiin sida Turkiga oo kale musuqmaasuq iyo qurun iyo magaranaysaa yaa lala aadin. haddii scholarship ay bixisana scholarshipka si cadaalad ah ha loo qaybiyo, laakiin inta la musuqmaasuqo dad magaranaysaa eber ah meesha yaa la geyn, hadhowta magaranaysaa ceeb bay imaanaysaa. marka waxaan leeyahay salaam dhammaantiin.